بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومية iyo gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka waxaan runtii aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa inaad siisaan kalsoonida iyo ansixinta ra'iisul wasaare xasan khayre waxaan arkaa inay tahay unanimous 231 oo halkan maanta fadhida inuusan qofna diidin qofna uusan ka aamusin taas waxay muujinaysaa midnimadii Soomaaliya inay bilaabatay waxaan leeyahay dawlad walba waxay leedahay iyo xukuumad walbaba ama dawlad walba waxay leedahay halku-dhiga dawladdan waxa weeye dib u heshiisiin iyo dib u dhis waa dawlad dib u heshiisiin iyo dib u dhis oo ku dhisan saddexda asaasiga ah oo koow ay ka tahay amaanada ummadda amaanada ay noo dhiibteen inaan u ilaalino labo cadaalad inaan ku shaqeyno oo ah tiir dhaxaadka dalna burburiya ama dal dhisa tiir dhaxaadku waa cadaalad tan saddexaadna waxa weeye dadkeena saboolka ah ama dhibku haysto inaan u naxariisano aan isku naxariisano taasna waxay ku timaadaa waxa weeye in dadku uu heshiis yahay maanta laga bilaabo ummadeenu waa heshiis dadka dagaalaya waxaan u sheegaynaa inay joojiyaan dagaalka dadka iskhilaafsan inay iscafiyaan intaas haddaan gaarno ilaahay abaarta waa naga dulqaadi waxay abaarta noogu soo noqnoqonayso waxa weeye waa cadaalad darro iyo annagoon isu naxariisanaynin qof walboo Soomaali ah wixii aan soo marnayba inaan iscafino gacmaha isqabsanno waxaan aaminsanahay adduunka inaan ka hormarayno maxaa yeelay wixii aan soo marnay adduunka hore u maray aad arkaysaan waa soo wada mareen dagaal sokeeye waa la soo wada maray baahi iyo abaaro iyo famine waa la soo maray inta soo martayna waa hadda inta wax nasiisa oo aan raahno deeqda beesha caalamka hana siisaan raahno waxaad ogaataan Afrika waa ka hormarnay hadda maxaa yeelay wixii aan soo marnay dib ugu noqon mayno qofkii waalan oo rabo inuu dib ugu noqdana waa xasuusinaynaa dhibkii dhacay qixii dhacay isdilkii dhacay ee diintii islaamka ah oo la xumeeyay waxaan ka soo gudbinay 26 sano hadda wixii ka dambeeya waxaan u dhaqaaqaynaa dhanka dimuqraadiyadda ah hadduu Ilaahay yiraahdo iyadoo qof walba oo Soomaaliya uu xaq leeyahay haddii uu minority yahay wuxuu minority ku yahay xisbi qabiil ma aha xisbi baa minority lagu noqdaa ama xisbi iyo majority lagu noqdaa shaqada noo taalayna ka mid tahay 4 sano soo socota inaan axsaab samaysano oo dadka waalaha dib u heshiisiin u sameeyno qolada dhibkan ugu haysa oo argagixisada oo shabaabka ahna waxaan aaminsanahay waqtigoodii waa dhamaaday haddaan isu tagno oo aan is aamino oo aan midowno oo annagu aan heshiino al-shabaab hal lug bay ku taagan tahay lugtaasna waa u bixinaynaa insha Allah kuwa la khalday oo caruurteena ah mar walba waxaan leenahay soo noqda wixii aad samayseen waa la idinku khasbay fikir khalad aad qaadateen khalad kuma lihdin soo noqda dadka waalihiin u soo noqda hooyooyinkiina u soo noqda waalidiintiina u soo noqda asxaabtiina u soo noqda ummad wada islaam nahay waxba aynan ku kala duwanayn oo dhaqan ku kala duwanayn soo noqda kuwa ummada kale u shaqeeya ciidamada qalabka sida waa u diyaarsan yihiin qalabkii iyo waxay u baahnaayeen in mushaharadiina waa siin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo ciidamada AMISOM iyo cid walba oo na taageertana waa garabsanaynaa waxaan leenahay waqtigii ay dhibka nagu hayeen waqtigii ay horumarka noo diidanayeen way dhamaatay dhalinyarada la khalday soo noqda waxaan idin siinaynaa waqti aad ku soo noqotaan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan idin ka ballan qaadaynaa dhaqan celin inaan idin sameeyno waxaan idin ka ballan qaadaynaa dhaqaale inaan idin sameeyno iyo tababar aad ku shaqaystaan oo umadiina aad ku soo dhex gashaan ummadda kale Soomaaliyeed oo kala maqanna insha Allah geed gaaban iyo geed dheer waa u fuulaynaa sidii aan u keen lahayn Soomaaliland oo kale iyo dadka Soomaaliyeed oo shakiga ku kala dhex jiro insha Allah baarlamaankii sharafta lahaa waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka waxaan u shaqeyn doonaa 4 sano soo socota
rabitaanka shacabkan ku shaqeynayna iyo taladooda iyo waxay rabaan waad mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihiin walaalayaal